السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا برامج جارون كو ايجي دونو سعودان iyo wax ka ogaansho safar muddo saacada qaadan doona ayaa ku booqan doona qaar ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose safar badan ayaa safar qayb ka ah safar dalxiis iyo hawl shaqo isugu jira ayaan hadda waan bixi doonaa waxaan noo bilowday socdaalka dhanka badda ah ee aan ku bilownay xeebta magaalada Kismaayo kaas oo qorsheynayna inaan ku ogaano xaaladda guud ee jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose socdaalida baddu waxay ka mid tahay safarada ugu halista badan ee dunida ee lagu socdaalo taas oo ay fududahay inay doonto kula qalimato gudaha badda inaad badbaadana ay adag tahay maadaama inta badan ay gudaha badda ku nool yihiin xayawaano kala duwan oo saameyn ku yeelan kara nolosha qofka bini'aadamka ah waxaan sii garamarinay jasiirado yaryar oo ay degan yihiin dad aan aad u tiro badnayn kuwaas oo ah dadka luumaysata waxayna dadkaasi ahaayeen qoysas aad u yar waxaan sii soconnaba waxaa badda ku sii jirnay muddo dheer annagoo ay hadba isha la helaynay waxyaabo badan oo nacajab geliya oo aad u qurux badnaa qabowga gudaha badda aragtida ku cusub qaarkeen oo ay meesha kala kulmeen iyo waxyaabo badan oo nacajab galiyay muddadii aan ku guda jirnay socdaalka badda socdaal qaatay ku dhawaad 1 saac iyo 45 daqiiqo oo dhanka badda ayaan soo dhammaysanay inta kadib waxaan ku soo degnay mid ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose oo aan kormeer ku sameyn doono waxaan ogaan doonaa xaaladaha guud ee deegaankan inagoo markaas inta ugu badan ku eegi doono waxyaabaha deegaanka ka jira waxaan sameyn doonaa kormeer guud ahaan jasiiradaha koonfurta gobolka Jubbada Hoose ayay tani waa mid ka mid ah jasiiradahaas waxaan la sheekaysan doonaa gudoomiyaha jasiiradan inta kadib socdaalkeen waxa uu socon doonaa in muddo ah maalmo ayaan halkan ku qaadan doonaa joogitaankeeda oo qorshahan uu ahaa in aan shaqada ka qabanno si aan wax badan ugu ogaano jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose kooyama ayaa lugta gelinay saacado kadib markaan soo dhammaystiranay barbilowga safarkeena oo qaar ka mid ah aan ku qaadanay inta u dhaxaysa jasiiradda Kooyame iyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose halkan muddo ayaan sii joogi doonaa si aan xog dhammaystiran uga helno deegaanka taariikh ahaan dadka deegaanka iyo waxay caanka ku yihiin dadka reer Kooyame halkan waxay ka mid tahay jasiiradaha ugu quruxda badan kuwa dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose si guud muuqaalka deegaanku waa mid aad u qurux badan oo ay jeclaysanayaan indhaha milicsiga aad marka libiqsan karin quruxda ka muuqata iyo bilicda soo jiidashada leh saacado kadib gobolka ayaa dam nagu yiri oo quruxdu waxay ku sii socotaa godkeeda annaguna waxaan sii qorsheynaynaa sii joogidda halkan oo Kooyame si qurux badan ayay dadka deegaanku noo soo dhaweeyeen muddada halkan joognay sideedii fiidnimo waxaan ku suganahay mid ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose waxaana jasiiradahan ay ku isku teedsan si dheer safarkeenii dheeraa ee ka soo bilowday magaalada Kismaayo ayaa haatan markaas aan ku ekaanay jasiirad lagu magacaabo Kooyame oo amri ka sii amba qaadi doona hawlaheena shaqo anagoo markaas si guud u ogaan doona gudaha jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose xaaladahooda guud iyo waliba halka ay marayaan xaaladooda barnaamijka inta ku guda jirno waxaan wax badan kala sheekaysan doonaa maamulada deegaanada ama jasiiradaha dhaca gobolka Jubbada Hoose halkan ayaana ku suganahay caawa waana 8 fiidnimo dabcan waxaana gudaha u gali doonaa magaalada anagoo waqti la qaadan doonaa mas'uuliyiinta deegaanka Kooyame oo halka ay ka bilaaban doonto shaqadeena koobaad qaar ka mid ah dhalinyaradii nala socotay iyo kuwa kale ayaa waqtiyo kala duwan wada qaadanay anagoo halkaas sheekooyin nagu dhex mareen socdaalo kala duwan ayaan ku qaadanay muddadii aan joognay halkan caawa halkan ayaan ku hooyan doonaa dhammaan asxaabtii qaybtiga lahayd howlahan shaqo ee aan u soo aadnay deegaanada dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose ee qaybta ka ah deegaanada jasiiradaha waxaan ugu dambeyn muuqan doonaa goobta cashadan lagu kariyay oo dhammaan martidii qaybtiga lahayd safarkan ama socdaalkan ay caawa u soo ama baxeen halkan ayaa caawa lagu casho karin doona oo ku qaadan doona waqtigeena
intaas kadib waxaan u diyaar garownay cawaysin iyo qaadasho waqti aan la qaadanayna qaar ka mid ah asxaab aqaltii la'aantii keligii matagni haddinaan istaakulin tabaryeelanayne habeenkii ayaa sidaas dab noogu yidhi waxaa loo diyaar garoobay in la seexdo oo inta ka dhiman la qaato wakhti hurdo kooban subaxii ayaa dib noogu baryey waxaan bilownay safaradii iyo shaqadii sidii qorshuhu ahaa waxaan dib ugu laabannay safarkeennii badda annagoo cagta marin doona jasiirado ay ka mid yihiin qandalka koyomaani iyo jasiirado kale oo qayb ka ah kuwa dhaca gobolka jubbada hoose muddada ku guda jirnay safarkii badda waxaa noo suura gashay inaan booqdo mid ka mid ah maraakiibta ka kalluumaysata gudaha badda kaas oo ay mas-uul ka ahaayeen dad Soomaali ah waxaa idiin muuqda qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay markabka iyo sida gudihiisa looga shaqeeyo maalin kadib ayaan dib ugu soo laabanay jasiiradda Koyame waxaan bilownay inaan u diyaar garowno dib ugu noqoshada magaalada Kismaayo oo ah halka uu safarkeenu ka soo bilowday 2 maalin iyo habeen oo ku qaadanay jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose bartii ayuu ka bilowday safarkeennii waxaan ku wajahanay Kismaayo saacado badan oo madda gudaheeda ku soo qaadanay alla mahadi xeebta ayaan dib ugu soo laabanay aan ku marinay qaar ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose gudaanita aan ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka oo ku eegaynay socdaal la xiriira wax ka ogaanshaha jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose barnaamijka waxaa idiin diyaariyay anigu Cawli Cabdi Cabdullaahi Labaqeyda kaamirada waxaan uga mahadcelinayaa Cumar Siyaad Axmed iyo Aadan Maxamed Cumar inta barnaamijkan la mid ku kulmi doono wabada Jubbaland TV oo idin leh assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته